aan kula kaftame hadraawiya waxaad sidataa magac weyn allah ya raxme abwaankeeni weynaa ee Soomaaliyeed maxamed ibraahim warsame hadraawi naanaystiisii baad sidataa marka bal wax yar noo sheeg sidee kugu baxday magacan hadraawi waa maasan tahay horta ani dadka aad ku hadal badan miyi kaamirada waan duubaa mooye marka ka soo muuqdo waa isbedelaa hadraawina bilowga hore intan magacani bixin waxa jira jacayl gaar ah u qabay suugaantiisa iyo qofnimadiisa maadaama uu ahaa philosopher Soomaaliyeed dadka inta badan waxyaabaha ay isku khaldaan waxa kamid ah ad marka qof la kulmo ku dhaw hadraawi baa la xira ma gabayda bismillaahir rahmaanir rahiim saaxiib soo dhawaada meel kasta joogtaan farxad ay noo tahay inaan mar kale halkan aanu naga daawanaysaan haddii aad nagu cusubtahay saaxiib soo dhawow haddii aad hore noola joogtaan aad baad ugu mahadsantahay maanta sida aragtaan waxa ay la joogan nin weyn akhyaara runtii aanu saaxiibaan nahay wax badan runtii aanu barnaamijyo kala duwan aanu halkan ku wadaagnay waa ciyaaryahan runtii soo jabay mar waa nin cameraman ah oo barnaamijyo badan oo magaalada Nairobi waraysiyo badan oo aad ka daawateen channelka SSTV runtii aad u qurxiyay u hagaajiyay sidaas la mid ah waa daayarta hal abuurka leh ee wadankan joogta dhanka kalena waa nin jecel barnaamijyada akhriska iyo qoraalka buugaagta hadraawi soo dhawow inaad nala joogtid na soo booqatid muddo kadib aad baan ugu faraxsanahay Cabdullaah ma santahay sharafi karaama leedahay aad baan u dhawahay horta xagee jirto aydan maalmahan 40 dhowr cisho waxaan ku maqnaa dawlad deegaanka Soomaalida oo ahayd markii ugu horeysay aan tago wax badan aan kala soo kulmay waxaan tagay ilaa 8 gobol barnaamij gaar ah ka sameyn doonaa safarkeygii dawlad deegaanka haddii Ilaahay idmo markaa waan ku mahadcelinayaa saa ii sheegtay bari dhexdeer maraan sheekaysanaanay adiga waxaad ii sheegtay inaad xaafadaha Muqdisho ka mid aad ciyaaryahan laacib ah oo cagaha loo gubtay aad soo ciyaari jirtay bal dibna xasuusi horta halkan waxaan ka salaamayaa asxaabteedii reer Muqdisho aniga waxaan ahaa ciyaal Bakaaro BKR ilaa iyo KBB dhalinyaradii aad baan u salaamayaa markaa yaraa way fadhiday kubadda maanan sii wadin mooye waa ku fiicnaa Soomaaliya waa iska taqaana oo kubadeeda mustaqbal fiican ma laha dadkii ku jiray baan hadda micna saa u badan ku lahayn laakiin markii ciyaalka xaafadda iyo degmadii loo noqdo maan xumeyn asxaabteedana way ka soo warabi doonaan numberkeed ka ciyaari jirtay number 9 bardheed mar ay isla ciyaari jirnay fakfaktaada iyo lugahaga dhaadheer waaba ka ciyaari kara weyn marka ma ciyaartii baa ka luntay mise waad yara weynaato adiga le waqtiga dhalinyarinimadaad xasuusanaysaa ninka markuu soo jabo baashu ka dhamaanayso waxa lagu gartaa difaac ku soo noqdaa haday aragti salaxano difaac ku jiro iska garo baashi waa sii dhamaanaysa ciyaaryahan haddana waxaa tahay cameraman oo barnaamijyadan warbaahinta si dadban ugu jirta see ugu soo biirtay barnaamijyadan muuqaal sameynta Cabdullaah ma santahay anigoo markaa iskuul saxaafadeed ka soo baxay oo magaalada Nairobi jooga ayaa waxa maalin ila taliyay macalinkayga macalin bilow halkan aad uga salaamayo wuxuu igu dhiirigeliyay inaan xirfadaha barto khaasatan editingka iyo sida mataqaana muuqaalada loo duubo waxaan maleynayaa ilaa 2019 dhamaadkiisii maalinka laga bilaabo ilaa hadda waan ku guda jiray ilaa waxaan ka qayb qaatay ku dhawaad 200 oo wareysi oo aniga gacanteyda ku duubay iyo barnaamijyo kale oo aad u badan safarada galay waxay ahayd safar aad u qurux badan waan xirfada aad ugu raaxaystay runtii oo qurux badan oo jacayl xad dhaafan u qabo oo aan rabay inaan sii hormariyo haddii Ilaahay idmo hadraawiyo qofka dhalinyarada doonaya barnaamijyadan hadda xiisaanay inuu ku soo biiro muuqaal sameynta oo kale iyo aaladahan casriga ah ee social media qofka raba inuu hadda ku soo biiro wax sameeyo maxaa looga baahan yahay inuu sameeyo oo macnaha 1 2 3 oran karta horta wax walba waxay ku xiran tahay qofka iyo rabitaankiisa watii ay maamaadu ahayd wuxuu rag ku kaco rabbina la garab galo way suurta galaan ka go'naansho ay u baahan tahay inaan mar walba noqoto qof baahi badan u qaba inuu wax kororsado wax barto dadku soo dhex galo dadaal iyo karti haddii uu qofku isku darsado waxa aaminsanahay wax walba uu rabo oo dunidana inuu ka dhabeeyo uu suurta gelin karo hadii Ilaahay qadaro waxaad oran kartaa qodob 1 iyo 2 qofka dhalinyarada ay xiiseynaya hadda akhyaarta halkan la joogto nin kamid ah xiiseynaya marka maxaad u sheegay dad badan wayna daawanayaan dabcan oo muuqaalka waxa laga yaabaa inuu siyaalo kala duwan dad badan u gaaro marka maxaad kula talin lahayd qofka maxaa looga baahan yahay inuu hadduu doonayo inuu bilaabo barnaamijkan oo kale
halkee baa mudan in laga bilaabo maxaase u suuragelin kara qofka inuu barnaamijkan soo galo meesha mudan ee marka hore in laga bilaabo waa in uu u aadaa iskuul ama hadda dunyadu way isbedeshay sidii hore maaha ama isagu isbaraa waxaa laga bartaa social media youtube-ka waxaa jira websiteyo badan oo laga barto lacag baa lagu bixiyaa ama si free ah waa inay midda ugu weyn oo kale ay jirtaa waxaan waa inaad jacayl u qabtaa waxa markaa jacayl u qabtid waxaa fududaanaysa inaad qabatid laakiin haddii ay ama saaxiibada ay sameeyaan inaad ku daytid noqoto ama inaa maalmo uun awadid xiisaheedu uu koobnaan doonaa waqti ma qaadan doono waxyaabaha la arko xaqiiqda waxaa ka mid ah wax walba uu qofka dareen u hayo uu jacayl u qabo uu ku gulgaaraa aan kula kaftame hadraawiya waxaad sidataa magac weyn allah ya raxme abwaankeennii weynaa ee soomaaliyeed maxamed ibraahim warsame hadraawi naanaystiisii baad sidataa marka bal wax yar noo sheeg sidee kugu baxday magacan hadraawi waa mahadsan tahay horta aniga dadka aad ku hadal badan mihi kaamirada waan duubaa mooye markaa kasoo muuqdo waa isbedelaa hadraawina bilowga hore intaan magacan ii bixin waxaa jira jacayl gaara u qabay suugaantiisa iyo qofnimadiisa maadaama uu ahaa filosofer soomaaliyeed dadka inta badan waxyaabaha ay isku khaldaan waxaa ka mid ah markaa qof la kulmoon ku dhaw hadraawi baa la xidha ma gabaydaa marka su-aasha ugu horeeya la weydiiyo waa taas sababta loogu bixiyeyba hadraawi waxay ahayd hadraawi wuxuu joogay yaman hadra baa loo bixiyey oo ka timi qofka aamusan ee aan hadalka badnayn kadib ayaa hadraawi loo bedelay marka intiisa hore ee aamusnaanta ahaa baan wataa laakiin gabayadiisii iyo filosofernimadiisii meel u dhow xataa ma istaagin ma jirtaa wax maansooyin ama waxyaalo curin aad leedahay iskuma daya xataa iska daa inaan curiye miyaad jeceshoba dhegeysataa marka aad isaga gaariye dhoodaan iyo niman kaloo aad u fara badan allah u naxariisto oo cala dhuuxii ka mid ahaayeen aad baa u dhegeystaa gabayadoodii aad baad mahadsantahay dhalinyarada ku daawanaysa ee aan runtii aan jecelnahay inay barnaamijkan ka faa'iidaystaan fariinta aad u diraysaa maxay tahay wallaahi fariinteedu way kooban tahay dhalinyarada waxaa leeyahay qof walba ha ku dadaalo wixii dantiisa ah sheekooyinka maalayacniga ee baraha bulshada yaala waxba kugu soo biirinayn adiga intaa iska dayno qof walba siduu u dhisi lahaa mustaqbalkiisa iyo dantiisa ha ka shaqeeyo garabkiinana la galo aad baa mahadsantihiin kaasina wuxuu ahaa maxamed xuseen hadraawi magac dheer oo runtii aanu dugaanka dhexdiisa ku qabanay barnaamijkan kooban aan ka sameyninay intaan barnaamij kale aan ku kulmayno waxaa idin leeyahay amaan allah asalaamu calaykum waraxmatullah